Asalaamu calaykum daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban aynu ku eegi doono 10 meelood oo cilmi ahaan ay adag tahay in la rumaysto balse jira. Inta aynu muuqaalkeena horta u gudbin waxaan idinka codsanayaa inaad channelkan Cadnaan Yaasiin subscribe, like and share saartaan waad mahadsantihiin. Kaalinta koobaad waxaan ku eegi doonaa webiga Qalayaan ee ku yaala Amazon taas oo heerkulkiisu gaadho 93 degrees Celsius. qof kasta oo dhex gala webigana si fudud ayuu webigani u dilayaa. Waxa xusid mudan in ay dadka webigan ku ag nool ay aaminsan yihiin inuu webigani awood weyn leeyahay. Si uu u xaqiijiyo waxa tagay saynisyahankii Andrew Rosso kaas oo soo xaqiijiyay jiritaanka webigan. Kaalinta labaad waxaa ku jirta buurta Moofal ee Romania. waxa buurtan markii ugu horeysay la ogaaday sanadkii 1986. Imika buurtan waqti xaadirkan waa la mamnuucay in loo dhawaado kaliyaata waxa la ogol yahay adiga oo fasax haysta. Buurtan waxa ku nool xayawaano cajiib ah. Oksijiinta buurtan ayaa waxa lagu tilmaamaa inay tahay 10%. waxa kaloo la ogaaday in ay buurtan ku nool yihiin 48 nooc oo xayawaan ah. Waxaa xusid mudan in ay badanka xayawaanadan ay indhaba lahayn ee ay kaliyaata dareenka wax ku arkaan. Kaalinta saddexaadna waxaa ku jira webiga Nida ee ku yaala dalka UK amba United Kingdomka. Webiga Nida ayaa waxa uu ka dhigayaa waxyaabaha u dhawaada dhagax taas oo ka dhigtay in ay dadka ka baqaan webigan inay u dhawaadaan. Kaalinta afraad waxaa ku jira badda Karachi ee dalka Russia. badda Karachi waa meesha ugu booliyuushka badan leh adduunka. waxa ay ku ag taalaa buurta Urali ee galbeedka Asia. wasakhda baddan ayaa gaadhay heer haddii aad saacad hawadeeda neefsato aad ku dhiman doontid, taas oo ay ugu wacan tahay raadiyeeshanka warshadii hubka ee midowga Sofiyeeti iyaga oo qashinka ku qubi jiray baddan. Kaalinta shanaadna waxaa ku jirta badda akhtarta ee Australia ku taala. Daawadaan ku weydiiyay maxaad u malaynaysaa inaad aragto markaad bad dhex quusto, ma biyo nadiif ahayn mise dhir kugu dhegta oo dhaadheer? Badda akhtartu haddaba waxay ku taalaa magaalada Twyford, xaggaas oo ay ku taalo barkad mugeedu dhaafeen 2 mitir sanadka oo dhan. dadka aagan ku nool amba magaaladan ku nooli waxay baddan u soo dalxiis tagaan bilaha 6 iyo 7. Kaalinta 6 waxaa ku jira labada geed ee Kasooso ee ku yaala dalka Talyaaniga. waxa ka dhacday dalka Talyaaniga mucjiso akhtar ah taas oo ay laba geed iska dul baxeen. dadka meesha ku nool ayaa ogeynba siday ku dhacday mucjisadani. dadka ayaa aaminsan in ay shimbiri dul dhigtay geed dushii midho geed kale, taas oo ay sababtay in ay labada geed iska dul baxaan. inkastoo ay naadir tahay, jawaabta meesha taalaa waxa weeye miyay labada geed iska dul bixi karaan cilmi ahaan. Kaalinta 7aadna waxaa ku jira hilaaca Katambobo ee Venezuela. Hilaacan ayaa socday sanadkii 2060 maalmood oo ka mid ah, habeen kastana 10 saacadood ayuu socday. haddaba waxaa sababay duufaanadan hilaaca sababay gaasta methane oo ka soo baxda dooxyada ku yaala dalkaas, iyada oo ay isku dhex milmayaan uumi ka yimi buuraha Andalus. Kaalinta 8aad waxaa ku jira fulkaanaha Igahijan ee Indonesia. fulkaanahan ayaa heerkulkiisu gaadhaa 290 Fahrenheit. fulkaanahan ayaa dabka habeenkii ka yimaada buluug noqdaan, iyada oo ay ku hareeraysan yihiin maadooyin sun ah oo bini'aadanka dili kara. Kaalinta 9aad waxaa ku jirta beerta Matosinhomia ee dalka Brazil. beertan ayaa badkeedu gaadhaa 1550 kiiloomitir oo isku wareeg ah. waxa uu soo dalxiis yimaada sanadkii 1000 qof. waana meel hawo fiican oo ciid ka buuxaan, ciiddaas oo qaab kala duwan samaysa. ciidan waxaa sii dhex fadhiya biyo, taas oo ka dhigtay meel cajiib ah. Kaalinta 10aad waxaa ku jira soodhaca dhiigga ee ku yaala Antarctica. biyo soodhacan ayaa sameynaya midabka dhiigga.
haddaba culimada sayniska oo arrintan baariya ayaa waxay u maleynayaan in ay ugu wacan tahay bahalka loo yaqaano daxaalibka, Soomaaligana loo yaqaano algeyga oo ku jira biyahan. Biyo soo dhacan ayaa waxa uu ka milix badan yahay 3 goor biyaha caadiga ee badda.